Door wanaagsan saaxiibayaal sidaa runtiin meel kasta aad dunida ka joogtaan. Labadan beri waxaan u maleynaa inaan soo dhigin wax shax ah. Asxaab badan ayaa isoo weydiisay sababtaan usoo dhigi waayo labadan beri shaxda iyo waxa igu dhacay. Asxaabi waxba iguma dhicin waa fiicnaa laakiin maalmahan waxa isbedelay ciyaarihii ayaa isbedelay sidaa ka warqabtaan. Anigana markasta waxaan jeclahay shaxdan soo dhigaa shax boqolkii 99 ilaa boqolkii 100 la hubo inay tahay. Marka meel Arsenal looga badinayo iyo kooxo weyn lagu garaacayo markaan arkay xogaa waxaas dhahay bal assessment ku samee ama qiimeyn ku samee. Marka maalmahan ciyaarahan qiimeynaya sida u dhacayaan. Anyway si walba ahaataba weligay waxaa idin dhahaa shaxda markay idin soo gaarto shaxda daawo inaad daawato waxay ka saacidaysaa inaad naftirka wax ka bedel ku sameyso maadaama waxaan ay yihiin fikrad ay tahay laakiin boqolkii 99 fikradda in loo dhaweeyo ay tahay. Marka problem ma lahan waa la soo qabsan doonaa. Shaxda maanta ayaan guda galaynaa 9kan kooxooda maanta aan yiraahdo 7 kooxooda idin soo xulay. Waana oddskeedana waa $10 ku dhawaad. Europe League iyo ayaa idin ka soo xulay sida ka warqabta caawa waxaa jira Europe League. Sporting Club de Portugal kooxdan kale ayaa caawooda ciyaaraya. Maxaan ku yiraahdaa Europe League 5 saac caawa ay ciyaarayaan. Marka Sporting Club de Portugal way adag tahay koox adag waaye marka boqolkii 99 waxaa la rajeynaa inay caawa ay ka badi doonto dhigeeda. Marka waxaan soo xulnay inay badi doonto. Lazio iyo kooxdan kale sidoo kale UEFA Conference League ayaan kaga soo xulay. Europe League wuu jira Conference League wuu jira. Marka tan waxaan leenahay Lazio kooxdan kale way ka adag tahay marka Lazio badi doonta iyadana sidoo kale leenahay. Ajax iyo Union Berlin labadan kooxood labadaba way adag yihiin. Marka maadaama laga yaabo Ajax inay badiso oo macnaha in da'yarto ciyaarto ay qatar ay yihiin xagga attack ama weerarka inay ku fiican yihiin. Union Berlin naftirkeeda waa koox iska adag laakiin sidaan guusha aan ugu dhaweyno waxaan u soo qaadanay inay Ajax Bridge and Badis ay heli karto. Waxa kale ku sii xiga Sevilla iyo PSV Eindhoven. Sevilla iyo PSV Eindhoven xataa boqolkii 90 waxay u badan tahay PSV Eindhoven inay badiso oo Sevilla laga badiyo. Laakiin si aan markasta guul hadan u gaarno waxaan u dhaweynaynaa waxaan leenahay Bridge and Badis si markii la fiirsana PSV Eindhoven ayaaba lacag badan markii la fiirsho. Marka aniga PSV Eindhoven qaatay marka adiga hadda Sevilla aaminsan tahay inay Bridge and Badis gali karto waa u jeedaa 2.35 senti saaran waa sameyn kartaa. Soo soco waxa kale ku sii xiga Barcelona iyo Manchester United. Marka tani marka weerarkan wuxuu noqon doonaa weerar isdaba joog ah oo because Barcelona maxaan ku raaddaa aad weerar badan yaa ciyaaro sidoo kale United oo xilidan dambe iyada naftirkeeda aad u kacsan. Marka tan marka cidna lama dhihi karo way badinaysaa wax walba laga yaabaa gool badan ay imaan karo. Marka tan waxaan qaadanay over 2 goal marka 2 gool iyo ka badan aan qaadanay oo inay macnaha ka imaan karto. Waxa kale ku sii xiga Salzburg iyo Roma oo iyada UEFA Europe League ay caawa sidoo kale wada ciyaaraya. Marka Roma sidoo kale waxaa leenahay double chance inay Bridge and Badis ay heli karto. Roma ayaan ka soo xulanay. Waxaa ugu dambeeya Bayer Leverkusen iyo AS Monaco. Labadan kooxood Bayer Leverkusen way adag tahay AS Monaco sidoo kale. Marka Bayer Leverkusen waxaa leenahay iyadana Bridge and Badis inay heli karto. Marka guud ahaan 7 kooxood idin ka soo xulay Conference League iyo Europe League halkan ayaan ku soo gabagabeynaya. Koodkana waa kaasa laakiin fadlan shaxda markay ku soo gaarto saaxiib daawo markastana ku dhaha waa inaad daawataa taas ayaana ku wanaagsan. Waad maasantii saaxiibayaal soo dhawaad markale.